waa kasmaal oo ka kooban 3 wareeg oo tartamayaasha kala duwan ay ku tartamaan 10 su'aalood oo wareegga koowaad iyo 5 su'aalood oo wareegga labaad iyo 1 su'aal oo wareegga saddexaad. haddii aad doonayso ka qayb qaadashada barnaamijka kasmaal ka soo jawaab su'aalaha ku soo dhici doona lambarkaaga Somtel adigoo soo qoraya jawaabtaas leedahay waa tan saxda ah sida ba ta ja ama xa kadibna ku dir lambarka 822 wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir qancinta macaamiisha telefoon lambarkiisu yahay 100 ama 66 eber. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو wanaagsan daawadayaal meel kasta dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka kasmaal oo idin kaga imaanaya TV-ga iyo raadiyaha dawladda Puntland xarunta dhaxaan ku leenahay magaalada Garowe ee caasimadda dawladda Puntland. waa barnaamijkii bisha barakeysan ee Ramadaan soo wadnay oo shirkadda Somtel ay ku abaalmarinaysay tartamayaasha qaybahooda kala duwan ee ku tartamaya saddexda wareeg ee barnaamijkan uu ka kooban yahay. anu yeero tartamaha ugu horeeya ee caawa wiilka lagu magacaabo Axmed Cabdi Jaamac hala soo dhaweeyo. السلام عليكم أحمد. عليكم السلام. سولو. عنده. وكم أحمد. أحمد أحمد عبد الجامعين وترتم يا برنامج كسم سمتل. تاريخ هذا قوة. من أنا وذاك كذا. تاريخ قوة وحنا هي أرض الجامعة أو دكتور جامعة بي إس أو كنا مع عاصمة بطلان قارهان قروي وديكن حافظه هذا. ويا أحمد هوري برنامج مو قيبش. ماي كمان قيب قلنا كم كسوق قيب قلنا جرد هذا ياشا كم ها. واي. صدق وريك بين السوقية مر الله ولا نقدر طول دونا سؤالها مرنا كقب قلياش أنا عاونية مرنا وحنا عندنا ميت كم ساعدين السوق. واي وبالعبارة السؤال شكواد وحينا الله هذا حي أحمد. dadka iyo dhirta waxa noole ah ba minna ta dadka ta dhirta ha labadaba waxa oo labadaba labadaba ma dadkii dhirtuba waa noora موتا وتا oo dadka dadkii dhirtu waxa noola ah ta oo dadka tiir waxa wada ta waa go'aansan ya ta waa go'aansan ta waa go'aansan may waxa oo labada ah go'aanka ugu dambeeya go'aanka ugu dambeeya waayay dadkii dhirta waxa noola ah ha oo labadaba ها ولا بدو waa wada eegi doonaa su'aashaasina jawaabteedu waa mid sax ah way shaki markii hore inay yar galay way su'aasha labaad waxay la odhanaysaa waxaa jira wax shan ah oon 6 noqon waana ba ma jiro waxaas ta salaadaha faralka ta sunnaha ha sanadaha saladaha faralka saladaha faralka oo ta oo ta waayahay waxaa jira wax shan ah oo 6 noqon waana saladaha faralka oo ta waynu eegnaa ta waayahay salaadaha faralka ah ayaa 5 ah mana jiro wax kale waqta way waxa jira wax 5 ah oo 6 noqonin waana ta oo salaadaha faralka ayaa wadeegi doona su'aashaasina jawaabteedu waa mid sax ah su'aasha saddexaad waxayna odhanaysaa codka ay bixiso hasha ilmaheeda laga reebay waa ba danan ta olol ja reeb ha abaab ta olol hasha ilmaheeda laga reebay ta olol
oobta ya waynu eegnaa waayahay codka ay bixiso hasha ilmaheeda laga reebay waa ta oo olola ta oo olola ayaan wada eegi doonaa olol su-aashaasina jawaabteedu waa mid sax ah waayahay su-aasha afraad 300 kun oo shilin Soomaaliya shaqaysanay waxayna odhanaysaa xayawaanka loo yaqaan doonta saxaraha waa ba geela ta dameeraha ja baqasha xa faraska waa ba oo geela ah ba oo geela xayawaanka loo yaqaan doonta saxaraha ma geela doonta saxaraha la dhahaa waa huta waayahay xayawaanka loo yaqaan doonta saxaraha waa geela ba oo geela ayaan wada eegi doonaa ba oo geela ayaan wada eegi doonaa su-aashaasina jawaabteedu waa mid sax ah waayahay su-aasha shanaad waxayna leedahay tirada bilaha xurmada leh waa tirada bilaha xurmada leh waa ba 3 bilood ta 7 bilood ja 4 bilood iyo xa oo 6 bilood ah waqtigu waa inoo bilowda jawaabtuna waa dhankaaga waa ja ja oo 4 bilood tirada bilaha xurmada leh waad hubtaa waynu eegnaa hadii tuhun lagu jiro fursadaynu haysanaa tuhun bixi karnaa haddeen hubnaa waa eegan karnaa ma eegnaa laba iga xor labay naga tuurnaa labay dalbanaa in naga tuuro jaadii ma eegnaaba ya jaada maxaa uga noqoto mee laba xor labay xornaa waaye waxaan dalbanaa in labana laga tuuro waa taaganta 3 bilood oo ba ah iyo ja oo 4 bilood waa ja oo 4 bilood jaadaadii waa ku adkaysatay tirada bilaha xurmada leh waa 4 bilood ja oo 4 bilood ayaan wada eegi doonaa ja oo 4 bilood ayaan wada eegi doonaa su-aashaasina jawaabteedu waa mid sax ah su-aasha lixaad shimbirka ugu xoog badan shimbiraha waa ba gorgorka ta hudhud ja tukaha xa qooleyda ba oo gorgorka ah ba oo gorgorka ah waad hubtaa gorgorka ugu xoog badan shimbiraha waynu eegnaa shimbirka ugu xooga badan shimbiraha waa ba gorgora ba oo gorgora ayaan wada eegi doonaa su-aashaasina jawaabteedu waa mid sax ah waayo su-aasha 7aad waxayna odhanaysaa meel fiican may soo gaadhin dalalka ay ka kooban tahay qaaradda aasiya waa ba 34 dal ta 5 dal ja 11 dal iyo xa oo 50 dal ah qaaradda aasiya waa xa weeye 50 dal qaaradda aasiya 50 dal may ka kooban tahay waa hubtaa ya ma eegnaa qaaradda aasiya meel fiican ma soo gaadhin haddii shaki lagu jiro fursadaynu haysanaa lagu tuhun saari karo axmed soo hubtaa marna ma tagta aasiya aya ma eegnaa xa eegod xa oo 50 dal ya waynu eegnaa go-aankaa ugu dambeeyey qaaradda aasiya waxay ka kooban tahay xa oo 50 dal waynu eegnaa go-aanka eeg go-aankaa ugu dambeeyey waa yahay
dalalka ay ka kooban tahay qaaradda aasiya waa ha oo 50 dal ah aynu eegnaa waay aynu eegnaa qaaradda aasiya dalalka ay ka kooban tahay waa ha oo 50 dal ah ha oo 50 dal ayaa wada eegi doonaa 50 dal su-aashaasina jawaabteedu waa mid khalad khalad waa ba oo 34 dal dareenkaaga axmedow maasha allah waxaan filayaa qaaraddaasi inaysan dalalkeedu mar dambe aan khaldi doonin insha allah waayahay nasiib waxaan ku rajeynaya barnaamijka kasmaal waanu kaaga mahad celinaynaa faa'iidaysiga aad dadka uga faa'iidaysay su-aalahaasi iyo waqtigaaga iyo weliba ka qaybgalka barnaamijkaba axmed al sii dhawey waayahay waxaad la socotaan daawadayaal barnaamijka kasmaal oo idinkaga imaanaya puntland t v xarunta dhexaan ku leenahay magaalada garoowe tartamaha xiga ayaan markan u yeedhayaa gabadha lagu magacaabo fartuun axmed cabdulqaadir hala soo dhaweey Hello. Somtel, waan ku baahanahay. Somtel ayaan hayo. Somtel, Daruurahan sabeeyayo. Somtel, Surunkii kastoo idilaa. Somtel, Sikin baan ku gaadhayo. Somtel, Dadku way sugayaayo. Somtel, Iisa cabtumayaayo. Somtel, Waan saacidayaay. Sodek, asalaamu calaykum fartuun عليكم السلام ورحمة soo dhawow ودوها waa tuma fartuun مقعي وفتون أحمد عبد القادر waxaan wax ka bartaa magaalada Garowe kuna soo barbaaray waxaan dhigtaa labada jaamacado kala ah kuliyadda tababarka macallimiinta GTech iyo jaamacadda Puntland State University BSU oo aad ka barato jiitag macalinimada waa ka barataa BSU na IT IT waa ka barataa macalinimad baa rabtaa inaad noqoto إن شاء الله qaybtee qaybta sayniska khaas ahaan labada maado kala ah biology chemistry biology chemistry isku fiicnaydeen markaagii hore ها waa gartay markaas sababta ku doortay inta badan su-aalo biologyga la xiriira iyo kuwa sayniska la xiriira intaba isku soo duubo waa ka buuxaan barnaamijka rajeynayna in dadka uga faa'iideyno إن شاء الله marna intii aad jiita ku jirtay ma ku shaqaysay macalinimada أما يا سنة كواد بولا وذا sanadkii koowaad baa ku jirtaa ها laakiin bal maanta in badanna waa lagu soo imtixaamay macalinna waa laga yaabaa inaad noqoto wax imtixaantid maanta adiga baa fadhiya ها ya ها waayahay fortunay waxayna hor yaallaa 3 wareeg mar baa layna caawin doonaa oo laba laynaga tuuri doonaa marna ka qaybgalayaasha ayaa ina caawin doona marna waxaynu wacan doonaa mid ka mid ah saaxiibadeena Somtel su-aasha koowaadna waxayna odhanaysaa waayahay nebi yuusuf calayhi salaam hooyadii waxaa la odhan jiray ba raaxila ta ruun ja raaqiya ha raxma
haye su-aasha haddaan jawaabtan isku dayo waxaan oran lahaa waa xa oo ah raxma. xa oo raxma ah qofka haddii tuhun lagu jiro fortunay waa layna caawin karaa laba in laynaga tuurayo in ka qaybgalayaashu ina caawiyaan iyo inaan wacana mid kamid a saxaabadana sunta haddii aan humana waa eegan karnaa ka qaybgalayaasha ina caawiya. waayahay asalaamu calaykum ka qaybgalayaal waxaan rabnaa inaad naga caawisaan aniga fartuun nebi yuusuf calayhi salaam hooyadii waxaa la odhan jiray ba oo raaxilo ah, ta oo ruun ah, ja oo raaqiyo ah iyo xa oo raxmo ah. yaa qaba inay tahay ba oo raaxilo ah. nebi yuusuf hooyadii ba oo raaxilo ah yaa qaba inay tahay. waayahay yaa qaba inay tahay ta oo ruuna, ta oo ruuna. waayahay ja oo raaqiya ah, raaqiya. yaa qaba inay tahay xa oo raxma ah. su-aashaas ka qaybgalayaasha laftoodii bay fartuun ay ku adkaatay. laba qof ba laakiin ruun iyo raaqiya u kala taagay gacmaha. raaxilo iyo raxmana oo marka hore adigu aa qabtay cid uma codaynin, laakiin go-aanka adaa iskale. fursad kaleenu haysanaa in ku tuhun baxno haddii ay nagu adkaato. laba iga tuura. waayo waxaa dalbanaa in labana laga tuuro. ba oo raaxilo ah iyo xa oo raxmo ah. ba oo raaxilo ah. nebi yuusuf calayhi salaam hooyadii waxaa la odhan jiray ba oo raaxilo ah. ba oo raaxilo ayaan wada eegi doonaa. ba oo raaxilo ayaan wada eegi doonaa. su-aashaasina jawaabteedu waa mid sax ah. waayahay su-aasha labaad waxayna odhanaysaa nebigii dabka lagu tuuray isagoo nool waa ba ibraahim calayhi salaam, ta nuux calayhi salaam, ja huud calayhi salaam, xa sakariya calayhi salaam. su-aasha jawaabtan waa ba oo ah nebi ibraahim calayhi salaam. waad hubtaa. waayahay nebigii dabka lagu tuuray isagoo nool waa ibraahim calayhi salaam. ba oo nebi ibraahima ayaan wadeegi doonaa. su-aashaasina jawaabteedu waa mid sax ah. ku yiri qur-aanka qul yaa naaru kunii bardan salaaman calaa ibraahim. salaamun calaa ibraahim. waayahay su-aasha saddexaad waxay odhanaysaa ninka aadan weligaa gaaraynin waa ninka kaa ba maba jiro, ta xaas fiican, ja caruur badan, xa maal badan. su-aasha jawaabtan waxay noqonaysaa ta oo ah ninka kaa xaas fiican. ta oo ah ninka kaa xaas fiican. ninkaasaan weligaa la gaarayn. haa. waayahay ninka aadan weligaa gaadhaynin waa ninka kaa xaas fiican. ta oo xaas fiican ayaan eegi doonaa. ta oo xaas fiicana. su-aashaasina jawaabteedu waa mid sax ah. waayahay su-aasha afraad waxayna odhanaysaa waxaa loo yaqaan faraska lab ba geenyo, ta goodir, ja biciid, xa gammaan. su-aasha jawaabtan waxay noqonaysaa xa oo ah gamaan. faraska lab haa. gammaan baa la dhahaa. waad hubtaa. haa. waxaa loo yaqaan faraska lab xa oo gammaana. xa oo gammaan ayaan wadeegi doonaa. xa oo gammaan ayaan wadeegi doonaa. su-aashaasina jawaabteedu waa mid sax ah. muxuu ahaa bramburkii ya bramburkii muxuu ahaa tirin jirteen marka aroosyada miyaan buraanburada ma tiriye. bay dumarkaa tirin jiray le ma xasuustaa? may ya maad ka xushoonaysaa laakiin waa garanaysaa laga yaaba. ya may weli aroos ka buraanburto maya geenya gamaan faras ya waan kugu gelbinanaa suma is dhihi jirin dumar. waayahay su-aasheenna shanaad waxayna odhanaysaa gamas macnihiisu waa
ba nabad ta mudac ja waran ha masaar gamas macnihiisu waa ba nabad ta mudac ja waran ha masaar su-aasha jawaabta haddaan isku dayo waxay la tahay ta oo ah mudac. ta oo mudac ah ayay kula tahay mise waad hubtaa ma hubo way la tahay. way kula tahay ma eegnaa markaa furtun ma eegnaa ba oo ah nabad. ba oo nabad ah nabad miyaan aadna haddana ya jawaabta ba eeg. ba baan eegaa haa ya go-aankaa ugu dambeeyey haa gamas macnihiisu waa nabad nagu adkaato haye jawaabta furtun soomaali ma garanaya yaa rab. bisinka u qabo laga yaaba inoo fududaatee ja oo waran ah ja oo waran ah nabad waa ka soo tagnay mudac waa ka soo tagnay haddana waran baynu maragnaa ka kalena har ma hadhow ina geysaa basaar keliya inoo hadhay soo maa taanka u dambeeyey waxaa egtaa waran ja ah. ja oo waran ah oo go-aankaynu u dambeeyey haa aan ka laabasho lahayn waayahay gamas macnihiisu waa ja oo waran ah ja oo waran ah ayaan wada eegi doonaa su-aashaasina jawaabteedu waa mid sax ah waayahay mar dambe inaad isku keenso taagi maysaan marayna xasuusan doontaa su-aasha haa waaya su-aashan waxay ina leedahay waa teeni lixaad muddada nebi yuusuf calayhi salaam xabsiga ku jiray waa ba 9 sano ta 10 sano ja 5 sano iyo xa oo 7 sano ah nebi yuusuf calayhi salaam waagii la xidhay qisada suma haysid ma maqashay yaa waa maqla. ya fortunay qisada ma maqashay nebi yuusuf haa intee buu xabsiga ku jiray ba oo 9 sano. 9 sano ba ah ya ma eegnaa mise sidii ba iyagoo dhan maraynaa haye 4 sekin baa inoo hadhay 2 1 eber haye jawaabta fortun waqti waa inagu socda
haddaan isku dayo su-aasha jawaabtan waxaan odhan lahaa waa ta oo 10 sano ah. ta oo 10 sano ah. go-aankaaga ugu dambeeyey waynu eegnaa haa waxba kama dambeeyaan leh go-aan ka dambeeyey ma jira se weli tuhun baa qabtaa maya eeg muddada nebi yuusuf calayhi salaam xabsiga ku jiray waa 10 sano ta oo 10 sano ayaan wada eegi doonaa su-aashaasina jawaabteedu waa mid khalad khalad waa ha oo 7 sano ah haye dareenkaaga furtun waa ku faraxsanaa waa sanadkii labaad barnaamijka qayb galo maadaama sanadkii hore ku guuleystay sanadka hore ma guuleysatay haa maasha allah waa inaa hore noogu sheegtay sanadkan aad baan kaaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijka iyo isku dayga aad samaysayba ratuuna sanadka hore guuleysatay sanadkan ma aysan noo suuro gelin laakiin ha loo sacbiyo waayahay tartamaha saddexaad ayaan u yeedhayaa maxamed khaliif axmed hala soo dhaweeye xirmooyinka somtel ee maalinlaha ah uga bogo internet iyo hadal aan xad lahayn si aad u hesho garaac xidig 102 gees kadibna dooro 1 internet kadib dooro 3 xirmo maalinle ah kadibna ka dooro inta aad rabto inaad ku shubato oo hel hadal 24 saac ah iyo xirmo internet ah ku raaxayso adeega xirmooyinka somtel tusaale 25 senti waxaad helaysaa 500 oo MB iyo 24 saac oo hadal ah ku raaxayso adeega xirmooyinka ee somtel puntland mahadsanid asalaamu calaykum maxamed عليك السلام ورحمة soo dhawow الله وبركاته. maxamed khaliif axmed maxaa kuu raaca waxaan khaliif axmed axmed bay raaca waxaan ahay dhalinyarta ku nool xaasabada garowe wax kana barta iskoolaad ku yaala magaalada garowe waa galaaska afraad imtixaanaadka ku jira mise kuwa hadda soo galay insha allah kuwa sanada u diyaar garoowe yani haddii alla ka dhigo haddii aan kale. waayahay allaha nabad qab haynagu gaadhsiiyo dhammaanteen maxamedow horey ba uga qayb gashay barnaamijka may laakiin in badan baa daawanay barnaamijkan oo ku taxnaa waa ku taxnay waaya maxaad barnaamijka ka aaminsan tahay inuu yahay barnaamijkan runtii waxaan ka aaminsanahay barnaamij aqoon kororsiya khaasatan aniga waxaan ka faa'iiday su'aalo badan oo la xiriira aqoon guud haddii aan lahayd haddii aan lahayd maadi haddii aan lahayd iyo kuwo kaloo mataqaanaa waddankeena ku saabsan waayo mahadsantahay maxamedow 3 wareeg baa inoo yaala wareegga koowaad waa inaynu 10 su-aalood kaga jawaabno 1 milyan ku qaadano waad la socotaa aad iyo aad 5 milyan baynu sugayso wareegga labaad oo isna 1 milyan 500 ah iyo wareeg saddexaad oo ah hal su-aal oo keliya 2 milyan 500 lacagtuna waa 5 milyan 3 mar baa layna caawin doonaa mar laba laynaga tuurayo marka qaybgalayaashu ina caawin doonaan iyo mar aynu wacan doona mid ka mid ah saaxiibadeena somtel diyaar diyaar ma insha Allah waaye su-aasha koowaad waxay ina odhanaysaa waxaan birigoyn oo afgooyo waa waxaan birigoyn oo afgooyo waa ba garta ta lacagta ja hilibka ha ma jiro su-aasha jawaabteeda waa ba ba oo garta ah aad iyo waad hubtaa waan waa waxaan birigoyn oo afgooyo waa garta ba oo garta ayaan wada eegi doonaa ba oo garta ah ayaan wada eegi doonaa su-aashaasina jawaabteedu waa mid sax ah waayahay su-aasha labaad dareemayaasha shimbirta waxaa ugu daciifsan ba aragga ta urka ja dhadhanka ha taabashada dareemayaasha shimbirta waxaa ugu daciifsan aragga mise waxaa ugu daciifsan urta mise dhadhanka mise taabashada
haye fursadaynu haysanaa maxamed day nagu adkaadaan waxaasina loo leegi taro waayo waxaan dalbanaynaa in labana laga tuuro urka iyo dhadhanka horey labada midna mau tuhumsanay waayo labadaas ay soo hadhay ta oo urka ah iyo ja oo dhadhanka ah taa aan doonaya oo urka ah ta oo urka ah waad hubtaa ya taa urkaan doonaya dareemayaasha shimbirta waxaa ugu daciifsan ta oo urka ah waynu eegnaa ta oo urka ayaan wadeegi doonaa ta oo urka ah ayaan wadeegi doonaa su-aashaasina jawaabteedu waa mid sax ah waayahay su-aasha saddexaad waxayna odhanaysaa xayawaanka loo yaqaan taraaqad waa nooc ka mid ah ba kalluunka ta libaaxa ja lo-da xa aargoosatada waxa oo taraaqada waxa oo aargoosatada oo aargoosatada ah taraaqad waa nooc ka mid ah aargoosatada maynu egnaa ha waxa oo aargoosatada xa oo aargoosatada ah waad hubtaa ya ha isku insha allah miyaad hubtaa mise tuhum baa kaaga jira maya waxa oo aargoosatada xa oo aargoosatada ah aad iyo waad hubtaa go-aankaaga u dambeeyey ogaanka ugu dambeeya taraaqad waa nooc ka mid ah aargoosatada waynu eegnaa ha waan eegina waaya haddii shaki ugu jiro fursadaynu haysanaa maxamedow ma eegnaa ha waxa baan eegina insha allah wax tuhuna kuguma jira ma waxtaani kuma jira waayahay xayawaanka loo yaqaan taraaqad waa nooc ka mid ah aargoosatada xa oo aargoosatada ah ayaan wadeegi doonaa xa oo aargoosatada ah su-aashaasina jawaabteedu waa mid khalad khalad waa ba oo kalluunka oo kalluunka ah waayahay kalluunka see isku tihin weliga kalluun ma cunto kalluunka lasaas kuma fasha waayo dee reebadeed ma ahe waxaa kusoo koray gobolka nugaal gobolka nugaal laakiin dee bad waa leeyahay xeeb waa leeyahay eid iyo xaggaas marna maa tegin maya degmada laakiin degmada ma kusoo koray Ya. degmadana kusoo koray iyaduna ma laha degmada garowe dhinaca noogama adbaxay alaya xagga waqooyiga laakiin si intaan ma aanan rag xaggaa laakiin ma waa garta marka insha allah waxaan rajeynaynaa su-aashaasi inaysan mar dambe insha allah aysan nagu soo laaban doono hadday nagu soo laabatana aynu saxi doono si wacan baan ku rajeynayaa maxamedow waa dalkiisa tartamaha xiga ayaan markan u yeedhayaa gabadha lagu magacaabo caashe siciid cabdulaahi ha la soo dhaweeyo shirkadda isgaarsiinta ee samtel dadku waa gudbeenoo durba waxaa la gaaro gudub ay u dhaafeen halka loogu leeyahay waa guulo idankii isgarab aan ka helaynaa isgaarsiinta maanta iyo garaadkii samteelo garabkeenna laga helo gurigaad maraysiiyo geeskii aad joogtiyo magaaladaad gelaysaba gacalkaaga weeyaan marna kaama go'aysoo geesi deeqay weeyaan gabdhihiiyo raggeennuna gaajada isgaarsiin gacmaheeda kaga baxe shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee samtel meel qaxanqaxoo guban goobtii ay gaartaba gariin iyo cagaar bay gogolkaaga dhigan tahay bal hadda eeg waxay garabsanaysaa bulshadeenna guunka warkaaladay ka gaarnee guusheenna ugubka shirkadda isgaarsiinta ee samtel adiga oo saxariiray oo garan waayey meel aad miciin u raadiso kaa saacida amuurahaaga xaalkaaguna adag yahay ayaad heshaa samtel oo guul ku horseedda markaas ayaad u qanacdaa una faraxdaa sida ugu wanaagsan samtel waa wehelkaaga dhabta ah iyo saaxiibkaaga kuugu dhow asalaamu calaykum caasho وعليكم السلام ورحمة soo dhowow الله وأنا waa tuma caasho
عايشة سيد عبد الله haye dhigata jaamacadda Boosaaso mhm University faraceeda magaalada Garowe maxay ka barataa waxaan ka bartaa faculty nutrition and food science Waa semester 3 hadda baasaya tuban ka baas sanadkii semesterkii saddexaad ma tiri Tan baasaya hadda semester 3 baasaya dirta waa gartay cashay saddex wareeg bayna hor yaalla mar bay ka qaybgalayaashuna caawin doonaan marna laba la naga tuuri doonaa marna waxaan wacdi doonaa mid ka mid ah saaxiibadeena Somtel su'aaluhuna waa 16 su'aalood oo saddexdaasi wareeg ka kooban barnaamijkuna waa kasmaan hore ma uga qayb gashay may hore ma aan qayb galin waan daawan jiray waa daawan jirtay waayahay hadda kuugu horeyso shirkadda Somtel baa soo kordhisay barnaamijkan maxaad ka odhan lahayd maasha Allah hadda halka ka soo wadan lahayn waa gartay markaad fiiriso su'aalaha ku jira barnaamijkan wax faalla am ka bixin lahayd may man ka bixiyana waa caadi baad leedahay diinta dhaqanka dhaqanka wax lagu soo kordhinayo wax laga dhimayo may inta okay okay weeyaan waayo cashay su'aalaha baan bilaaban doonaa su'aasha koowaadna waxayna odhanaysaa maxkamadda adduunka ICC waxay ku taalaa dalka ba waxay ku taalaa ba Qaahira ta dalka Norway ja Rotterdam ha dalka Holland maxkamadda adduunka ICC waxay ku taalaa ba Qaahira ta dalka Norway ja Rotterdam ha dalka Holland in labada naga tuura cusnaysaa waayo wax tuhna ma kugu jiraan inta adiga ku qoran ya waayo waxaan dalbanahay in labana laga tuuro Norway iyo Holland baa soo haray su'aasha saxda ah ta oo Norway oo ta maxkamadda ICC ya waa maxkamadda dambiyada ICC ya ta baa dooratay oo Norway waynu eegnaa eegnaa ya waankan u dambeeyay maxkamadda adduunka ICC waxay ku taalaa dalka Norway waynu eegnaa 16 second bayna ah 15 ayo waqtiga waa naga dhacay taabad weli taaban go'aanka ku dambeeyay way maxkamadda adduunka ICC waxay ku taalaa dalka ta Norway ta oo Norway ayaa wadeegi doonaa Norway su'aashaasina jawaabteedu waa mid khalad waa Holland waayahay nasiib waxaan ku rajeynayaa barnaamijku dareenkaaga aad iyo aad waan soo koobi karaa waan kaaga mahad celinaa anaguna ka qaybgalkaaga waad ku mahadsantahay isku dayga iyo ka faa'iidaysiga su'aalaha ala sii dhaweeyo hawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneen ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowleyn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobilkaaga Somtel waayahay daawadayaal tartamahaasi waxaa u dambeysay barnaamijka Kasmaal oo kala socoteen TV-ga iyo raadiyaha dawladda Puntland xarunta dhexaanu ku leenahay magaalada Garowe caasimadda dawladda Puntland sidoo kale waxaa barnaamijkan ka daawanayseen barta shirkadda Somtel Puntland ay ku leedahay Facebook ee Somtel Puntland iyo Kasmaal Media iyo waliba sidoo kale idaacadaha Horseed Media oo kala ka dhageysanayseen sidoo kalena aad kala socoteen barta degalka internetka ay ku leeyihiin ee horseedmedia.com intaynu barnaamijkan lamid ku kulmi doono dhamaantay isku duuban waa bahda Kasmaal oo idinku dhaafaysa sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh
waa kasmaal oo ka kooban 3 wareeg oo tartamayaasha kala duwan ay ku tartamaan 10 su'aalood oo wareegga koowaad iyo 5 su'aalood oo wareegga labaad iyo 1 su'aal oo wareegga saddexaad. haddii aad doonayso ka qayb qaadashada barnaamijka kasmaal ka soo jawaab su'aalaha ku soo dhici doona lambarkaaga Somtel adigoo soo qoraya jawaabtaas leedahay waa tan saxda ah sida ba ta ja ama xa kadibna ku dir lambarka 822 wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir qancinta macaamiisha telefoon lambarkiisu yahay 100 ama 66 eber